waxaa habeennimadii xalay toole lagu qabtay magaalada London munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo musharax Jibriil Maxamed Yuusuf oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimada maamulka Puntland doorashooyinka la filayo inay ka qabsoomaan Puntland 2019 jaliyadaha Puntland iyo Galmudug oo isku duuban ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay musharaxa waxaana ugu horreynba xafladda lagu daahfuray oo si kooban dadweynaha loogu akhriyay taariikh nololeedka musharax Jibriil Maxamed Yuusuf haddaan si kooban uga hadlo taariikhdiisa waxa weeye Jibriil wuxuu ku dhashay magaalada Yaal Xaafuun oo ka tirsan gobolka Bari ayuu ku dhashay 1974 ayuu wuxuu ka qalin jibiyay ka baxay dugsiga sare ee Xamar ee Jamaal Cabdinaasir isla markaana wuxuu aaday waxbarasho sanadkaas u aaday wadankii la oran jiray Soviet Union magaalada Odessa salmeynay hadda waxay ka tirsan tahay Ukraine kadib wuxuu dhameystay sideetameeyadii markuu ka soo noqday meesha la yiraahdo Ruushka wuxuu macallin ka noqday jaamacadda meesha la oran jiray kulliyadii militariga Jaal Maxamed Siyaad Barre la oran jiray ee Xamar ku taal 88 markay ahayd wuxuu dib ugu noqday waxbarasho kale wuxuu aaday wadankii Soviet Union-ka magaalada Moscow isagoo markaa ka qalin jibiyay oo noqday maaragtay jaamacad ka qaatay shahaadada masterka ah ayuu wuxuu ka qaatay magaalada Moscow intaasi kadib waxaa hadalla isugu jira soo dhaweyn iyo dardaaran musharaxa u jeediyay mas'uuliyiintii ka hadlay goobta dhammaan jaaliyadaha Puntland iyo jaaliyada Galmudug oo labadooduba halkaan si mugle caawa halkaan u fadhiya iyo odayaal kale dhammaantood waxay soo dhaweynayaan musharax injineer Jibriil Maxamed Yuusuf waxaan filayaa ilaahay qofku cisaayo waxaan ilaahay qofku cisaayo markuu Jibriil buu soo diraa Puntland hadii wanaag la doonayo Jibriil baa loo dooranaya baan maanay Soomaalidu waxay tiraahdaa hogaagu waa kula barya tagaa Jibriil heekal madaxweyne uu leeyahay oo wajihay ilaahay waxaan ka baryayaa kaanu u baahanahay Puntland badbaadinaya maanta waa kaasoo kale ilaahay ka dhaw waxay Soomaalidu tiraahdaa caawan u farxad gaar ah ayay tahay Galmudug iyo Puntland oo ishaaradoodu isku meel ay tahay oo soo wada dhaweynaya madaxweynaha muxuu ahaa Puntland oo ka wada tashanaya waxa weeye waji cusub iyo hawl cusub roobka hadii aad rabtid baa la yiri intuu awoodiisu leegtahay nacawdiisaad ka garataa ninka la yiraahdo doodaan gabay buu tiriyay wuxuu yiri Soomaaliya halkaad ku socotaan waa loo haweeyahay buu ana soo gaabinayo waxaan leeyahay Jibriil halkaad ku socotaay waa meel haweyn waanad u haweyn tahay hankaagaas ilaahay ku gaarsiiyo hana ku siiyo ilaahay horta Jibriil waxaan leenahay soo dhawow London ku soo dhawow aad iyo aad baan kugu faraxsanahay musharaxnimadaada aad musharaxa u tahay Puntland aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa ka jaaliyad ahaan reer Puntland annagu waanu u simanahay musharaxiinta iyo dawladda xilka haysa intaba waajibkana saaran waxa weeye oo Soomaalinimada iyo Islaamnimadu cidii martiya oo noo timaada oo wax doonaysa faliya tafadal inaan niraahno garab istaagno hadda qof gurigaaga marti kuga ah waxaan ahayn soo dhawow iyo Allah kula garab gala ma ay jirto musharaxa oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu ka dhawaajiyay inuu ka howlan yahay sidii wax uga bedeli lahaa xaaladda uu maamulka Puntland ku jiro haatan dadkii maamulka madaxda ka soo noqday ee hore waxay gaarsiiyeen meel wax dhaxalgal ah Puntland sidaad ogsoontihiin hase yeeshee maanta waxa u maraysaa maamulka jira inuu ka weeciyay wadadii loogu talagalay dhismaha Puntland walaalayaal waxa kalifay aniga inaan maanta isu soo taago musharax
madaxweyne ee Puntland maaha mid aniga sida dadkii hore iga horeyn jiray ama qaarkood ay maartay rabeen weligood inay meeshaas maartay dhaqaale ama wax ka sameeyaan aniga maanta waxa ugu kalifay wax kale maaha dad badan aan isla soo shaqeynay ciidanka xagiisa ama dad badan oo qurbaha maanta isla joogno oo yiri Jibriilow meesha tan waa laga baahan yahay sababtuna ay tahay aqoontaada military baa maanta loo baahan yahay in isku dabarida wadankii waxaan isku dayayaa in maartay siyaasadii Puntland lagu yaqaanay inay Soomaali weyn raadiso oo maartay isku soo celiso nabadeynta iyo waxqabadka ummadda Soomaaliyeed inaan maartay meesheedii aan ka wado ugu dambeyntiina qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay xafladda ayaa hambalyo u diray musharaxa waa ku faraxsan inaan kala soo qayb galo musharaxnimadiisa waxaan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xilku ninka raadinaya inuu u fududeeyo waxaan leenahay madaxweynayaal badan bay Puntland soo martay hadda waxaan u baahanahay isbedel ilaahay ha u sakhiro waana rajaynaynaa inuu ku guuleysan doono Jibriil waxaan leenahay gacmo furan baan ku soo dhaweynaa Allah kula galagalo xilka aad doonayso waxaan caawa soo dhaweynay walaalkeen Jibriil oo ugu hambalyeynayno inuu ilaahay ku guuleysiiyo madaxweynenimada Puntland aad baan u soo dhaweynaynaa musharaxa madaxweyne ee dowlad goboleedka Puntland Mr Jibriil Maxamed Yuusuf waxaan leenahay guul ilaahay kula galab galo halkan waxaan u imaanay xafladda Jibriil waxaan leenahay hambalyo waxaan u rajaynaynaa inuu ku guuleysto Jibriil waxaan ku rajaynayaa khayr iyo bishaaro badan ilaahay ku fududeeyo maamulka dowlad goboleedka Puntland oo walaalaha aan nahay waxaan leenahay Puntland ay Jibriil doorta haydin daadaheeyo haydin daneeye Jibriil doorta Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Cabdiraxmaan Soomaali Kalson TV London